lista rayidka ee Soomaaliya ayaa u dirtay warqad hanjabaada shirkadda Fly Dubai. Wasaaradda Duulista iyo Hawada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku amartay shirkadaha dulmara Somaliland inay ka amar qaataan Somaliland xilli ay taagan tahay arrinta visa ee la isku hayo Soomaaliya iyo Somaliland. Geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa isna dahfuray shirka maalgashiga Somaliland oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 23 wadan. wasiirka arrimaha dibadda ee Masarna waxa uu qaabilay gudoomiyaha Midowga Afrika xilli uu kala hadlayay sidii ay Masar uga qayb gali lahayd hawlgallada ciidamada loo dirayo Soomaaliya. barnaamijka oo faahfaahsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa ee ku soo dhawow. hay'adda duulista iyo rayidka ee Soomaaliya ayaa warqad u dirtay hanjabaada shirkadda Fly Dubai. warqadan hanjabaada ayaa waxa ay ku sheegtay in ay shirkadda Fly Dubai ku xadgudubtay sharciyadii u yaalay gabi ahaanba Soomaaliya, taasi oo ay ugu hanjabtay in dalka laga eryi doono sharciyadeedana dib loo eegi doono haddii ay ka qaadi weydo arrinta visa, iyada oo sheegtay inay geysay dad reer Somaliland oo visa wadan ama fiisaha elektarooniga aan soo dalban ay magaalada Hargeysa geysay. arrintan ayaa aad uga cadhaysiisay shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ugu hanjabtay inay gabi ahaanba kala noqon doonto, taasi oo ay ku sheegtay xadgudub ay ku samaysay madax bannaanida Soomaaliya, sida oo kale ay ku samaysay xadgudub in ay nidaamka ammaan ee Soomaaliya ku xadgudbiso. haddaba geesta kale wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland ayaa warqad soo saartay ay u sheegtay in dhammaanba diyaaradaha adeegsada ruutiska ama khadadka Somaliland kuwii hore u adeegsanayay iyo kuwa cusubba in ay ka amar qaadan doonaan airportka magaalada Hargeysa ama raadaalada laga hagi doono Somaliland, taasi oo gabi ahaanba meesha ka saaraysa haddii lagu guuleysto in ay Somaliland wax visa uga baahato Soomaaliya. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay cirka isku sharirtay xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya oo ku qasabtay fiisaha ama fiisaha elektarooniga inay soo dalbadaan dhammaanba rakaabka soo raacaya diyaaradaha Soomaaliya imanaya ama Somaliland oo dhan, kuwaasi oo laga rabo qof kasta oo aan sidan baasaboorka Soomaaliya inuu soo dalbado barnaamijka visa. arrintaasi ayaa aad uga cadhaysiisay dadka reer Somaliland, maalmihii u dambeysana ahayd arrin xoog loogu foogana. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa isna dahfuray shir maalgashiga Somaliland ay shirkaasi ka soo qayb galeen ku dhawaad 23 wadan. shirkan ayaa madaxweynaha Somaliland waxa soo qaban qaabisay wasaaradda maalgashiga oo kaashanaysa wasaaradda madaxtooyada, iyada oo halkaasi ay iskugu yimaadeen maalgashadayaal ka socda 23 wadan. Somaliland ay soo bandhigtay ilaha iyo goobaha ugu fiican iyo fursadaha ugu fiican ee maalgashiga, iyadoo u sheegtay xilligaasi in adduunyada aanay uga baahnayn baryo iyo in wax la siiyo, laakiin ay tahay arrinteedu win-win ama guuleyso aan guuleysto imaal gasho waxaygana isi anna waxaaga iga qaado. arrintan ayaa la filayaa in maalgashadayaal fara badan ay soo jiidan doonto oo dunida ka mid ah Somaliland oo la sheegtay inay tahay wadan ammaan ah oo dimuqraadi ah oo maalgashiga ku fiican. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badri Abdilcaadi iyo waxa kulmay gudoomiyaha Midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf. arrintaas oo ka wada hadleen sidii ay Masar uga sii mid noqon lahayd hawlgalka cusub ee Soomaaliya ciidamada loogu dirayo ee AWSOM, kuwaasi oo bedeli doona ciidamadii hore ee ATMIS, xilli Mareykanka iyo wadamada reer galbeedkuna ay ka goosteen dhaqaalihii ay ku bixin jireen wixii la oran jiray ATMIS. arrintaasi ayaa haddaba waxa loolan xoog ugu jira dowladda Masar, iyadoo rabtay in ciidankeeda loo diro bartaasi sida ay uga mid noqdaan. dowladda Masar ayaa iyadu olole weyn ugu jirta maalmahan u dambeeya sidii Soomaaliya loogu diri lahaa dhaqaalena loogu heli lahaa.
haddaba ciidamadan ayaa waxa iska kaashanaya midowga Afrika iyo beesha caalamka si baa la yidhi looga taageero Soomaaliya arrinta al-shabaab oo ku haysa arrin aad adag oo haddii lagu sii daayo ama ay ka baxa Soomaaliya oo xilligan ku istaagin cagaheega ay dhibaato xoog ku keeni doonto oo ugu dambeynta ay noqon karto inay qabsato sidii Afghanistan oo kale arrintaasi ay haddaba dawladda Masar waxay wadaa olole aad u weyn dawladaha kale iyaguna xoog u wada waxa kamid ah dawladaha Djibouti Qatar iyo Turki oo iyagu doonaya sidii Soomaaliya cagaheega ugu istaagi lahayd in ciidamadaasi halkaas loo diro dhaqaalihii ay awal waxa bixin jiray dawladda Mareykanka oo inta ugu badan bixin jirtay iyo dawladaha reer galbeedka sida Yurub oo kale laakiin gabi ahaanba arrintii markii ay ka goosteen Soomaaliya waxay noqotay kuwa aan loo helin ciidamadaasi wax dhaqaale ah taasina ay kala burburaan barnaamijkeena caawin intaas uu inaga dhan yahay kuna soo dhawaada barnaamijyadeena halkan kala soco update-kii ugu dambeeyay xilliga ay wararku dhacayaan aad iyo aad baan ku salaamay